qiyaas boqortooyo oo hantideeda lagu qiyaasay midii ugu badneyd ee abid soo marta taariikhda aadanaha. Ma ahayn Yurub, ma aysan ahayn Aasiya, waxay ku taalay wadnaha galbeedka Afrika. Waxaan ka hadlaynaa boqortooyada Maali, waxaase ka hadlaynaa boqorkeedii Mansa. Qarnigii 14aad, iyadoo Yurub ay ku dhex jirtay dagaallo iyo gaajo, Maali waxay ku jirtay xilligii dahabka. Mansa Musa wuxuu xukumayay dhul weyn oo kasoo bilaabanayay badweynta Atlantic ilaa ay webiga Niger, isagoo gacanta ku hayay kalabar dahabka adduunka ee la yaqaanay xilligaas. Laakiin qisadiisu ma ahan oo keliya hanti, waa qiso qof uu xajkiisa diimeed u beddelay fursad uu dunida ku tuso awoodda iyo ilbaxnimada Afrika. Sidee ayuu Mansa Musa u sameeyay safar noociisii oo kale ah? Sideese dhaxalkiisu u beddelay fahamka adduunka ee Afrika? Intayna u gudbin Mansa Musa, haddii channelka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dheh. Mansa Musa wuxuu dhashay dabeeqadii 1200 isagoo ka tirsanaa qoyska Keita oo boqortooyadan aasaasay. Noloshii hore wuxuu ahaa qof aamusan oo loo diyaarinayay nolol siyaasadeed, laakiin ma ahayn kii xukunka ugu horreeyay oo loo maleynayay. Awowgii weynaa wuxuu ahaa Sandiata Keita, libaaxii aasaasay boqortooyadan weyn. Xukunku wuxuu ugu yimid si kadis ah. Mansa Musa wuxuu ahaa boqor xigeenka walaalkiis, boqor Abubakarkii labaad. Boqorkan wuxuu ku riyooday inuu ogaado xadka badweynta Atlantic sanadkii 1312, isagoo aan qancin baaritaanno hore. Abubakarkii labaad wuxuu iskiis ugu dhoofay badweynta, isagoo hogaaminayay tiro aad u badan oo maraakiib ah. Wuxuu u dhaafay Mansa Musa inuu xilka hayo intuu ka soo laabanayo. Boqorkii kama soo laaban goobtaas. Mansa Musa wuxuu noqday boqorkii 9aad ee Maali. Isla markii uu Mansa Musa xukunka qabtay, wuxuu bilaabay inuu ballaariyo boqortooyadii uu dhaxlay. Wuxuu kordhiyey maamulka, wuxuu xakameeyey dhulal cusub oo ka koobnaa 24 magaalo oo ay ku jireen xarumihii ganacsiga ee Gao iyo Timbuktu. Hantida dhabta ah ee Maali waxay ku tiirsaneyd milixda oo ka qiimo badneyd dahabka waqooyi iyo dahabka ka yimid koonfurta. Mansa Musa wuxuu ahaa maamul caqli badan, ma uusan dagaalamin oo keliya, wuxuu ganacsiga ka dhigay nidaam go'an oo lacag lagu ururiyo. Wuxuu u diyaar garoobay wax weyn. Guushii aasaaska ahayd safarkii dahabka ee xajka. Mansa Musa wuxuu ahaa muslim cibaado badan. U socdaalka xajku wuxuu ahaa waajib diimeed, laakiin Muuse wuxuu arkay fursad siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Safarkiisa ma ahayn wax la iloobi karo. Kolonyadii xajka waxaa la socday 60,000 oo qof oo ay ku jireen 12,000 oo addoommo ah, kuwaasoo xirnaa dhar xariir ah. 80 ilaa 100 geel ayaa siday 136 garaam oo dahab ah. Waxaa la dhisay masjid kasta oo jamaaci ah, kaas uu qabto safarka. Way adag tahay in la qiyaaso tirada dadka iyo xaddiga dahabka. Kolonyadu waxay si dhib badan ugu gudubtay saxaraha ayagoo u sii jeeday Qaahira oo ahayd xarunta adduunka ee Muslimka. Markii ay magaalada galeen, waxay ahaayeen wax laga argagaxo. Qaar Masaarid ah ayaa u maleynayay boqor kale inuu yimid. Mansa Musa wuxuu ugu deeqay dahab. Deeqsinimadiisa ayaana wax badan ka beddeshay suuqyada dahabka ee Qaahira. Taariikhyahan Al-Cumari oo booqday Qaahira 12 sano kadib xajka Musa, wuxuu qoray in deeqsinimada Muuse ay sababtay in qiimaha dahabka uu yaraado in ka badan 12 sano. Wuxuu qaybiyey dahab aad u badan, uu sababay sicir barar baahsan. Tani waxay ahayd mid ka mid ah caqabadihii dhaqaale ee ka dhashay xajkiisa. Laakiin Muuse wuxuu arkay cashar. Wuxuu muujinayay inuu maamuli karo qiimaha dahabka ee dunida. Sidoo kale wuxuu ballaariyay xiriirkii diblomaasiyadeed. Waxaa lagu sawiray khariidadihii Yurub ee ugu horreeyay, isagoo xukuma dhul dahabka buuxo. Mansa Musa wuxuu ka dhigay Maali mid la yaqaan oo caalamka ogaaday. Xajkii markii uu dhammaaday, Mansa Musa wuxuu dib ula soo noqday wax ka qiimo badan dahab. Wuxuu keenay aqoon-yahano, nafaqeeyayaal iyo macallimiin reer Masar iyo Andaluusiya ah. Mansa Musa wuxuu ogaa in awoodda dhabta ah aysan ku jirin dahabka iyo hubka, balse ay ku jirto aqoonta. Wuxuu bilaabay inuu dhismaha iyo waxbarashada horumariyo. Mansa Musa wuxuu hantidiisa u isticmaalay inuu dhiso xarumo ilbaxnimo oo aan la masiixi karin. Wuxuu sameeyey maamulo iyo nidaam cadaaladeed oo adag, kuwaasoo ku salaysan shareecada Islaamka iyo xeerarka maxalliga ah. Wuxuu ahaa nin fahamsan in mustaqbalka boqortooyada uu ku jiro waxbarashada. Gabagabadii, Mansa Musa wuxuu geeriyooday sanadkii 1337. Wuxuu xukumayay ilaa 25 sano. Wuxuu dhaxalka ka tagay mid ka dhigay Maali, xitaa kadib markii boqortooyadii ay kala daadatay, mid la ixtiraamo oo laga cabsado. Aqoonta uu maalgashaday iyo xiriirada caalamiga ah ee uu dhisay ayaa u oggolaaday inuu noqdo boqor aan la iloobin.
Qisada Mansa Musa waxay inoo gudbinaysaa 2 cashar oo waaweyn. Midda koowaad, awoodda dhabta ah waa maalgelinta mustaqbalka. Ma uusan dhisin oo keliya boqortooyo dahab ku dhisan, balse wuxuu dhisay maktabado iyo jaamacado, isagoo caddeynayay in maalgelinta maskaxda ay ka qiimo badan tahay tan dahabka. Midda labaad, taariikhda Afrika waa mid sharaf leh. Wuxuu dib u soo celinayaa sheekada ah in Afrika ay lahayd boqortooyooyin waaweyn, kuwo hodan ah iyo kuwo ilbaxay, xilli dad badan ay u haysteen in ay tahay qaarad aan la aqoon. Ugu dambeyntii, Mansa Musa wuxuu dunida u soo bandhigay mid ka mid ah boqortooyinkii ugu weynaa ee taariikhda. Waa qiso halyey ah oo ina xasuusinaysa inaan mar walba raadino iftiinka aqoonta ee ku qarsoon meelaha aynu u haysano inay mugdi yihiin. Boqorkii dahabku wuxuu inaga dhaxal siiyay in hantida ugu qiimaha badan ay tahay mid aan dhammaanaynin oo ah qalin iyo buug. Halkaa ay ku eg tahay taariikhdii Mansa Musa. Haddii channelka ku cusub tahay, mar kale nagu soo biir oo subscribe leh.